بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يدي لهانتين باميل والبو أد عالم كجوكتان داود يا لغيستيال كسو دوادا قول شو waxaanu halkan uga taxsiyeynaa eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday allaha u naxariistee ajakis waxa uu ahaa nin aad looga yaqaano dalka Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho sidoo kalena waxa uu ka mid ahaa ragga markaasi qaaliga ah ee ka baxay bahda saxaafadda marka ugu horeysa ehelada iyo asxaabta iyo qaraabada iyo dadkii isla soo shaqeeyeen ayaan halkan uga maaragtay uga tacsiyadeyneynaa geerida naxdinta leh ee ku timiday ajakis allah u naxariistee bal waxaan eegaynaa meediya badan oo halkaasi tegay ayaa waxaan kasoo qaadanaynaa meediyaha goobjoog iyo weliba qaabkii uu u dhacay iyo bulshada sida ay u dareentay markaasi geeridaasi naxdinta leh ayaan soo qaadanaynaa waxaa kaloo aan wareysi si toos ula yeelan doonaa Ilyas Cabdi Raxmaan oo isagu ku nool magaalada Muqdisho waatahay markana waxa aan rabaa inaan markaasi wax ka weydiino Ilyas waxaad nooga warantaa inta aad ka taqaanay ajakis بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون دمان أمد الصوماليات دمان بهذا الصوب الشقيين عبد دير مريدي وحن لها هاي إله ونحريسته وحو هارونتي من مؤلف من أمد ودنا يجعلاين runtii ummadana ku kasbaday wanaag qof walbana oo damiiran uu dareemayay runtii geeridiisii markii magaalada ee soo gashay ama laga wada maqlay magaalada oo dhan qof walba meeshuu joogo ka soo dhaqaaqay cabdi ilaahay u naxariisto maanta ma joogo waa dhintay laakiin wanaag uu sameeyay saameyntiisa magaalada maanta la gilgilanaysa runtii geeri qof walba taabatay ahayd shakhsiyadeed xitaa taabatay ilaahay u naxariisto cabdi meeshii runtii ummadda u badneed uu jiriyaa sakaraadkana ugu dhaafay qabrigiisa alla u waasiciyo samson marka ilaahay u naxariisto walaalkeen ilaaha u naxariisto runtii waxay ahayd geerin naxdin leh oo dhammaanba guud ahaan aan idhaahda shacabka Soomaaliyeed taabatay waxaad iiga warantaa shalay iyo sidii ay wax u dhaceen runtii shalay kali wax kuma koobneen samson maalinkii geeri ay soo gashay magaalada cabdi dheere muriid ajakis xanuunkiisii magaaladoo dhan waxay ahayd mid saameyn ku yeelatay sida la sheegana xanuunkan zaa'idka ka hor xanuun oo dareemayay maalinku xanuunkiisa uu soo shaac baxay isbitaal loo qaadana isbitaalka laga dareemayay culayska dadka ay dareemayeen runtii ajakis maanta ma noolo wuu dhintay xanuunkaasna uu dhintay ilaa u naxariisto waa dareemi kartaa maanta markii meedkiisii la maqlay waxaa ka horeysay xanuunkiisii social mediaha iyo lama soo qaadina sawirada isbitaalku uu buux dhaafiyay runtii waa la maareey waay dadka markuu dhintana runtii ummadoo dhan qof walba meesha joogtay kasoo dhaqaaqday marka ajarkiis ilaahay u naxariisto
wuxuu ahaa nin wanaag lagu bartay wuxuu ahaa nin ummadoodan ay jeceshahay runtii barnaamijyo badan oo bulshada ku wacyigelinayeen oo dad inta badan uu ku kasbaday marka runtii naftirkeyga dareenkeyga ma qiimey karo ma qiyaasi karo sababto tahay waxaan kamid ahaa dad dhowr sano ka hor la kulmay oo wax badan oo ka waaniyey ama wax badan tusiyey marka waxaan is leeyahay maantay runtii nin weyn ummadda haldoorkooda uu ahaa balse ummadda see u fikirta ilaahay uma fikiro ilaahay naga jeclaaday marka ajarkiis ilaah u naxariisto qaraawadiisii iyo asxaabtii oo lasoo shaqeeyna runtii waan ugu murug badan yihiin waan ugu dareen badan yihiin mudday soo wada shaqeynayeen marka ayagana ilaahay samar iyo iimaan allah ka siiyo meelaan wada socono waaye waa la kala horeeyaa ilaahay naxariistii jannaha siiyo samir iyo iimaan eheladiisii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday allah ka siiyo bahda saxaafadana ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo ajakis wuxuu ahaa nin lagu yaqaanay runtii wanaag badan oo aan siyaasadda waxba ku lahayn sidaas si lamida aan gelin badaha kale ee ay galaan marka waan ku fasaxayaa maadaama maaragtay aqankii wana malinaya inuu dhacayo agtaada ilyaas aad baad u mahadsan tahay waa mahadsan tahay daawadayaal mar kale waxaan jecelahay inaan siiyo eheladii iyo qaraabadii iyo eheladii uu ka geeriyooday sidaas waxaan jecelahay ilaahay raajicuun ajakis waa uu naga wada geeriyooday ilaahayna u rajeynayaa daawadayaal dhegeystayaal waxaanu uga barnaamij ma ahayn wareysigaas kooban wuxuu ahaa runtii geeridii naxdinta lahayd ee ajakis ku shalay dhacday ee magaalada muqdisho iyo weliba iyada oo dhammaanba gilgishay soomaalidu meel kastay caalamka ka joogaanba qof walibana markaa uu meeshiisii ku naxay haddaba barnaamijkan guul show waxaanu markaasi maanta u qabanay inaan ugu tacsiyeyno ehelkii qaraabadii iyo ummadda soomaaliyeed ee uu ajakis ka baxay inta aan hawada ku kulmi doonana waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo